Well, I first of all want to thank you for Dr. Edna Adan Ismail ergeyga gaarka ah ee dhinaca wada hadallada u qaabilsan Somaliland isla markaasina xubinka wafdiga madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi u raacay wadanka Guinea ayaa magaalada Addis Ababa waxay kula hadashay qaar ka mid ah saxaafadda caalamka waxaana sharaxaad ay ka bixisay taariikh ahaan Somaliland marxaladihii ay soo martay iyo qadiyada ay ku difaacayso madaxbannaanideeda. the story of my country, Somaliland. ugu horreynta waxay sheegtay saxaafadda inay doonayso inay la wadaagto waxyaabihii ugu dambeeyay ee dhacay I will give you a brief. iyo Somaliland sida ay halkan ku soo gaadhay iyadoo ku horeysay safarka madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu ku tagay wadanka Guinea oo saameyntiisa laga dareemay geeska Afrika. Recently, our president and his delegation dhawaan madaxweynaha iyaga iyo wafdigiisu waxay u safreen wadanka Guinea to Conakry the country of Guinea kadib casuumad uu ka helay madaxweyne Alpha Conde. at the invitation of President Alpha Conde. Over the years, Somaliland sanado badanba madaxweynayaal wasiiro iyo wufuud kale oo Somaliland ka socda waxay booqdeen in ka badan 90 wadan mid kasta oo wadamadaasi kamid ah waxaanu ka helnay soo dhaweyn diiran oo saaxiibtinimo iyadoo loo fidiyay rooga cas salaan madaxtooyo iyo saaxiibtinimo red carpets, presidential salutes, friendship. Our neighbors in Somalia have decided haddaba dariskayaga Soomaaliya oo aanan garanaynin waxa ku kalifay ayaa go'aansaday inay xiriirka u jaraan dalka Guinea ee soo dhaweeyay wafdiga Somaliland for having welcomed the delegation from Somaliland. su'aasha kale aan isweydiinayo waxay tahay Now the question why I ask myself is Soomaaliya ma waxay sidoo kale damacsan tahay inay xiriirka u goyso 90 wadan ee kale ee Somaliland soo dhaweeyay countries that have welcomed Somaliland, ma waxay qorsheynaysaa inay Ethiopia xiriirka u goyso iyo Djibouti iyo kuwa kale Ethiopia, Djibouti, and others. waxaan filayaa intan ay tahay ixtiraam darro weyn We think this is a great disrespect oo ay kula kaceen madaxweynaha Guinea Alpha Conde oo dadkiisu ay aad u jecel yihiin Afrikana laga who is xushmeeyo very much loved by his people and respected by the rest of African governments. waxay ixtiraam darro ku tahay madaxweyne aan ogolayn in loo yeeriyo qofka ay tahay inuu dalkiisa ku soo dhaweeyo iyo ka aanu doonayn Not be given a dictation about who he can welcome to his country or not. madaxweyne Alpha Conde uma baahna ogolaanshaha al-shabaab ama argagixisada permission of Shabab or terrorists iyo ogolaanshaha madaxda dawlad or the heads fashilantay of failed governments. maadaama ay Soomaaliya khubaro ku yihiin And since Somalia is very expert argagixisanimada in terrorism, waxaan isweydiinayaa I'm asking talow myself, is tani this ma hal abuur are they cusub oo inventing a new argagixisanimo form of terrorism, argagixisanimo diblomaasiyadeed diplomatic terrorism, iyo siyaasad argagixiso ah political terrorism? tani kama shaqayn karto Afrika Cannot work. madaxda dalalka madaxa bannaana waxaa loo baahan yahay in sidooda loo ixtiraamo ayay tiri Dr. Edna Adan Ismail oo Addis Ababa kula hadashay saxaafadda Heads of states are sovereign and need to be respected as such. adduunyadu wali waxay noo aragtaa inaan nahay qayb ka mid ah Soomaaliya The world considers us to be still part of Somalia. markii aan la midownay Soomaaliya waxay ahayd dal kaliya maantana Soomaaliya way kala daadatay Today, Somalia is fragmented. Somaliland is in Somaliland way bad qabtaa but former Italian Somalia laakiin Soomaaliyada Talyaanigu is fragmented waslado ayay u kala daadatay into mincemeat. yaa u hadlaya Soomaaliya Who speaks for ma Somalia? jiro dal la yiraahdo Soomaaliya There is no country. waa 5 qaybood oo yaryar iyo hogaamiye kooxeedyo yaryar oo xukuma qaybahaasi Who control yaa sections si of miyir qabta u midayn kara dal fashilmay sida who Soomaaliya in their right mind would reunite with a failed state like Somalia. taariikh ahaan Somaliland way ixtiraamtaa madaxbannaanida dhuleed ee dalalka And for the record, Somaliland respects the territorial integrity of nations. ma aaminsanin kala We daadin don't believe in fragmentation. mana aaminsanin gooni We u don't goosad believe in iyo secession. kala qaybinta We dalalka don't believe in splintering a nation. xuduuduhu waa inay ahaadaan sida ku taala dastuurka midowga Afrika Borders must remain as in the constitution of the African Union, as they were at the time, ee la sameeyay xilligii gumaystuhu tagay ee xorriyadda sida Somaliland like Somaliland. ma jirin Soomaaliya bad qabtay No intact Somalia. manay jirin dawlad Soomaaliya ka dhisnayd No government in Somalia. intii ay Somaliland nabadda ahay When Somaliland 28 has been sanadood peaceful for 28 years, taasi waa taariikh dheer oo dib loo raaci karo that's a long track record.
ma jirto dib u noqosho. There is no going back. Mana jirayso in dib loola midoobo Soomaaliya. There is no reunion with Somalia. Waxaan u baahannahay wada xaajood aan ku abuurayno jaarnimo wanaagsan. Dialogue to establish good neighborly relations. Iyadoo Somaliland ay teeda ku adag tahay. From its position of strength. Diyaar ayaan u nahay wada xaajood. Is ready. Si aan ugayigeena ugu bedelno mid nabdoon. How we can turn our region into a peaceful region. Sidaas ayay tiri ergeyga gaarka ah ee Somaliland u qaabilsan wada hadallada. Special envoy of Somaliland. Dr. Adna Aadan Ismaaciil waxaana intaasi ay sii raacisay. Ready to talk to Somalia anytime. Markasta diyaar ayaanu u nahay wada hadallo laga dhaxli kara jaarnimo inagoo ah laba qaran oo siman. Separate independent nations. Somaliland waxba looma yeedhin karo. Somaliland will not be dictated to. Somaliland Soomaaliya ma aha. Is not part of Somalia. Kamana tirsana waxa loogu yeero dawladda federaalka ah. Part of the federal or so-called federal government of Somalia. Ayay dunida u sheegtay Dr. Adna. Sovereign country. Waxa kaloo ay soo bandhigtay taariikh hore. I am going to give you iyo warqadii xorriyadda loogu saxiixay Somaliland ee 1960 ay soo saartay boqoradda Ingiriiska from Her Majesty Queen Elizabeth II oo waqti xaadir ka nool. Who is still alive today. Tani waa taariikh. Adigu ma bedeli kartid. Anna ma bedeli karo. You cannot change it. I cannot change it. Soomaaliyana ma bedeli karto. Somalia cannot change it. Iyo sidoo kale hambalyadii Mareykanku u soo diray Somaliland. To prove Somaliland independence, this is the congratulatory note from the United States of America. Ee uu soo saaray xogayihii Mareykanka ee xilka hayay 1960. Congratulating the Somaliland government on the achievement of your independence. Ee loogu tahniyadeeyay xorriyadda dal ahaaneed ee ay heshay Somaliland. Dadka leh Somaliland madax banaani ayay raadinaysaa. Ma garanayo waxay ka hadlayaan. Somaliland hore ayay u madax banaanayd. Ayay tiri Dr. Adna Aadan Ismaaciil oo saxaafadda kula hadashay caasimadda Ethiopia ee Addis Ababa. So when people say Somaliland wants its independence, they don't know what they're talking about. Somaliland has always been independent. adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Idahab. Haddaba macmiil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.